بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن داوديال كسو dhawaada wareysi gaar aan la yeelan doono Jawaahir Maxamed oo ah jiifka waqooyi ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalkani Kenya. Jawaahir ugu horan kusoo dhawow TV-ga Somali Cable magacii waa Cabdiqaadir Jiijila. Cabdiqaadir waa dhawaah. Jawaahir waxaan u maleynayaa waxa tahay gabadhii ugu horeysay oo Soomaaliyeed oo xaafadan jiif ka noqotay. Inta aadan noqon ka hor horta maxaad ahaan jirtay taariikhdaada? بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مر لبعض وحن سلام يا أمة الصومالية دافع دلك دافع مالك كوذا نوليهن سيدني لشيء مرعي جواهر محمد جواهر وحن أها مركو هريتو أرت مركو هر وحن أها جبر صومالية مركل لبعض نوح أها جبر صومالية ذو كينيا كودلتي وكينيا صومالية مركز الدحى وحن أها جبر وحبرتي وتعلين له intaan aan munaasabada hadda aan haynin aan qabanin ka hor waxaan ahaa shaqaale dawlad waxaan ka shaqeyn jiray wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha markaan arkay inay loo baahan yahay daruufo badan ay u haysato bulshada Soomaaliyeed qof afkooda iyo diintooda iyo jismigooda leh inay rabaan shaqadii baan dalbaday waana la isiiyay markii ugu horeysay oo aad shaqadan aad heshay caqabadihii ka hor imaaday iyo waxyaabaha aad la kulantay maxaa kamid ah Soomaalida u sheegtay wallahi Cabdiqaadir caqabadaha horta meel walba shaqo taal caqabada lama waayo shaqada marka ugu horeysay caqabadii hore oo la kulmay Soomaalida dad iska degdegsi badan baan nahay Soomaali aad bay u degdegsi badan tahay dadka anagoo dhan baa sidaa wada ah wixii oo ma sugi karno wax markii lagu dhaw suuq ma sugi karno taas caqabada ugu hore oo ugu weyn ahayd tan labaad waxa weeyaan waxaan arkay gabdho yar oo daadooda ay tahay 12 sano 13 sano mid ugu weyn ay tahay 13 sano ay tahay iyo wax ka yarba oo la guursanayo taasna caqabad bay ugu ahayd oo ilaa inaan taas ka shaqeeyo waa shaqadayda in ciyaalka gabdhaha waliba ah inay bartaan iskuulada ay tagaan oo iskuulada bartaan waa shaqo aniga ay taalo mas'uul iga saaran laakiin gabar yar oo 12 sano jirto oo durbaan loo tumayo oo hool loo suubinayo oo la aroosay markaan arkan caqabad bay ugu noqotay Jawaahir gabar Soomaaliyeed oo haddana askariyad ah Nairobi oo haddana ah caasimadii dalka Kenya ka shaqeynayso dadka Soomaalida la yaab bay la noqonaysaa dadka Soomaaliyeed markay arkaan inaad askari tahay oo ay kula kulmaan inta badan maxaad kala kulantay maxay ku sheegan والله كل هذا مدة 5 سنة وين جوجا مثلا 4 سنة مدة أنكو ده وين جوجا إسلي ذات كذا صفي عم بنسكو ده حقلنا ويا برتين لكن سيدا دبتة وقتي هره ذات كوي كل يابايا ويا بوين بابا كل يابايا محام دبا وجي مجاجا وجي سمدا محام قبل أنكو كذا إن الدرس حرته أو كوابود حرته أو رجع كده حجرته أو شقد رجع لو طلع على قبضته dadka way la yaabayaan laakiin markaan saaid u eego dhinaca kale u fiiriyana hadaad aragtada Soomaaliya hadaad fiiriso gabdhaha doorka sare kaga jira sarkaalka booliska oo munaasabada aad u weyn haya laakiin markaan arkay inaan soo kacayno oo gabdhaha ay badanayaan wallahi kulli dadku way iska baran doonaan marka aad ciidanka ku soo beertay oo aad haddana taliye saldhig aad noqotay oo salaan sharaf lagu taagay oo hamigaaga qayb kamid ah oo ku rumoobay maxaa dareentay والله كاله بلشده wax u qaboon ba horta igu jirtay bulshadeedana wax waan u qabtay door baa lahan kaga jira kulli qof kasta ma qancin kartay Cabdiqaadir bili aadan kana waa iska sida kulli bashar baan wadanahay qof aad u gaftana waa dhici kartaa inuu jiro qof aad wanaajisan waa jiri kartaa inuu dhaco laakiin sida badan waxaan isku dayaa dadkayga Soomaaliyeed waliba oo aad u jecelahay inaan aad u wanaajiyo oo munaasabada aan hayo inaan waxba ka sheegan askariyad baa tahay Soomaali iyo askari marka la maqlo haddana Kenya la joogo dadku waa taqaanayo waxbay ka muujiyaan marka xaafadda Islii marka askari ka noqotay Soomaalida maxay ka saacidaa isdhihi karaa Jawaahir wallahi kulli hadii la dhaxkaco microphone-ka boqolaal aan saaciday way jiraan aniga Jawaahir ahaan intaan saacideynin kulli inta aan saaciday inay badantaan u maleeyaa maalin walbo meesha saldhiga aan joogaani inta la keeno waan sii daayaa qaar waan waaniyaa oo waxaan ku noqonnaan dhahaa qaar waxaan dhahaa walaalow had ilmaha xun baa noogu darnaayeen soo baawarka ah baa noogu darnaayeen haddana way wada dhamaadeen saa ogta Cabdiqaadir waxa ka soo haran waa wax yar oo waalidkood hadda uu gacan ku dhigo hadii la safriyaba hadii kale magaalada ba joogin boo ka baxay kuwaas horta ay ugu darnaan jiray
kuwaasna wallahi qaar ul baan u qaadan jiray waan qaraaci jiray qaar waan waanin jiray laakiin hadda alxamdulillah shukrillah way yaraadeen ayagana way soo waansadeen oo waxay isdhaheen bulshada horta wax loo geysanayo waa bulshadoodii waa Soomaali waxa ay waxyeelo ku suubinayaan waa Soomaali waxa ay dhibayaan waa Soomaali waxa oo isbitaalada la dhigayo mindida lagu suraayo waa Soomaali waxa la laaynayo haddana oo la dilayo superpowerka ahna waa Soomaali horta wax la laayo faa'iido kuma noqonayso mar walba waxa fiican in waxaas laga tanaasulo oo qofkii la waaniyo oo waanada uu wax ku qaato jawaahir qof Soomaaliyeed oo haddana Soomaali Kenyaan ah oo mararka qaar xataa Nairobi dhaxmarayo baa dad jinsiye kala duwan leh ama qabaa'ilad kala duwan intii laga soo baxay sharci la weydiiyo marka askartaas la socdo kale dareen nooc dareenta marka Soomaali si gaar ah loo beegsado waad qiiranaysaa oo waad dareemi laakiin inta tabarteena waan qaylinaa waad qiiranaysaa oo waxaad leedahay qofka kale ha ka takoorka ka daa waad qiiranaysaa oo inta awoodeenana waan ka hadalnaa Cabdi Qaadir sida dhabta ah haddaan runta ku sheego Soomaali ayadaa barta dadkan lacagta waxa qofkan sharci ku weydiiyay sharciga aad haysato wadanka ku joogto haddaad dhibato waad tiraa sharcigaana ku joogaa aliyeenka ilaa iyo waqti uu leeyahay qof kasta oo ajnabi u dhashan aliyeen weeyaan ma aha laazim Soomaali kali aliyeen ma dadkeena waxa ka dhaadhacsan ninkii Soomaaliya ka imaado baa aliyeen ah ma aha aliyeen qofka hadda Yurub ka yimid oo hadda jooga magaalada aliyeen uu qaadan karaa ilaa waa wadanka uma dhalinin waay oo qof ajnabi oo wadanka jooga tahay aliyeenka asaga ah waa sharci hadda dhibato ya ila dad baa ku siiyo xurun buu ka soo baxay uma maleynaa inay kugu sii taagsanayaan ha Soomaalida marka waxooda dhan buu iska noqoto wax oo si kala ah wallahi waan la yaab dad sharci aqaan ah ma marka aad aragto inta badan saldhig baa joogtaa dadkii sharciyada la weydiiyay dadka lagu keeno Soomaali waa u badan markii qof Soomaali oo labada sharci la weydiinaya jawaar inkastoo dadka amaan fara badan ay ku hayaan maxaad istiraahdaa waan qiiroodaa laakiin inta tabarteedana waa caawiya Kenya doorasho ka socota dad Soomaaliyeed oo qaxootin ay ku sugan yihiin doorashadan sidee baad ugu diyaar garowday inaad amnigeeda sugtaan wallahi doorashada amnigeeda uu sugan yahay wax qalalaasana uma maleynaa inaan la kulmi doono maxaa yeelay waa wax plan strategic plan wax la dhaha la suubiye ka hordhac baa la soo suubiye plankaas oo ah amniga inaan sugno polling station badan baan qabnaa Kamukunji waxaan qabnaa hadday 14 ahayn haddaan tiriyo waxaan qabnaa Kamukunji secondary school waxaan qabnaa child survival waxaan qabnaa Pumani Hall Our Lady of Mercy Heshima Primary School Zawadi Primary School Kiambio Social Hall California Primary School waxaan qabnaa Pumani Health Center Bihafra Health Center Hisley High School Hisley Primary School waxaan qabnaa St. Teresa's Primary School Mainawanjigi Secondary School Airbase Primary School horta xurumaha lagu subinaa kuuraha waa intana dawladdaas kale intana ammaankeeda waa sugan yahay sida dhabtaadan kala hadlo ammaankeeda waa laga taliyay waana wax la bilaan gareeyay oo la soo hordhac laga sii subiyay qalalaas iyo dib inuu dhacayo uma maleynay waa u diyaar gareysana si diyaar ahana ugu diyaar gareysana ninkii qalalaas ka rida maalinta kuuraha meesha la ridayana sharcigu hortagaya dhanka sharciyada kale xaafadan hadda Islii oo kale Soomaali waa u badan hadana caqabadaha ugu badan ee ka bandhigi laga ma gooyay leeyahay degmada Kamukunji gaaraan xaafadda Soomaaliya ee degtay Islii jiifka kaliya Soomaali ee leedahay waa adiga maxaa ku dhacay sharciyadii Soomaalida hilaayay taas been bay ku sheegeen Soomaali haday ku tiri Cabdi Qaadir taas challenge weeyaan maalin walbo Monday to Friday xafiiska naga Kibanda waa laga gooyaa Monday to Friday xafiis ku yaalo Kamukunji on Kibanda laga jireen male Monday to Friday waa Isniin to Jimco ilmaha loo jaraya marka sidan ah qof iska socdo Kibanda loo ma jari karo ilmaha primary schoolka Nairobi ka akhristay oo waraaqii school living certificate Nairobi haysto birth certificate haysto meel walba ha noqoto KCP Nairobi haysto cunuga caqabada ma hortaagna waalid sulka u saarana haysto maalin walba loo jaraa maxay marka Soomaalida caqabadaha ay sheegayaan iyo sharciyada interview baa la geeyaa Soomaalida waxa loo geeyana waa all muslim names magacyaha islaamka oo dhan sida ogta Cabdi Qaadir adduunka uu halaabay meel walba wax ka dhacana qof ma usle oo magac muslim sheegta marka annaga haddaan muslimiin nahay magaceeni sidaas uu meel walba horta oo ana caqabado ku leenahay boor hadaa tagta ilba laga sawiraya qofka muslimka waay magaca muslimka aad leedahay hadaad rabto qof oo waxaad noqon kartaa Kenyaan oo Kikuyu ah laakiin magaca muslim leedahay vetin baad aadaysaa vetin kaas oo la kala ogaanayo inaad tahay rasmi Kenyaan ah
ama Kenya qof imaaday oo kibaandho sida ku rabo fetinkaas bay dadka ka cabanayaan anigana waxa dhib uma arka laakiin caawasho kala jirto oo dhanka luqadaha kala ah in qofku ku kuunyaha kala luqadiisu ka hadlaya jalwahaas Soomaalida in aad interview marka aad la yeerayso luqada Soomaaliga uu ku hadlo kabaanaysa lagu maxaa lagu diiday Cabdi Qaadir Kenya waxa looga hadlaa national language keeda waa labo Ingiriiska aad loo ma tixgeliyo Swahili la national language ka Kenya sida Soomaali looga hadlo cunuga markuu inta iskuulka bartana obvious national language ka waa inuu yaqaanaa Ingiriiska ta laazim ah Swahili laakiin waa must national language ka ta kan kuyaha waxa lagu interview gareeyaa Swahiliga ولكن اللغات لا برتو سواحلي ولا بران كلا لكن إن قف كان وكينيان يح إن لغة تحجلي سو كمان وناسا أنت لغات الفرن والله عبد القادر أنا هذا دان كله قف أنتو بريمر سكول هلك كبوجي سكندري كبوجي في ساحل ما أقام ما كودي قريبة قف كاسيت في ساحل ما أقام كروا مست سكول كيابا مادة بكتاهبا سكول كدوكسي هوصل لغة دوكسي سرنا ولغة ومادة مركب في ساحل كان أذو وقف ذي هي مادوين ككله qofka hataa shalayto imaado wadanka uu baran kara aad buu u nugul yahay marka dadkeena Soomaaliyeed aqabad uma arkaan hataa afsooxilka maxaa yeelay inta ilmooda interview laga qaado kulli afsooxilka perfect ay ku yihiin labda waxa la arkaa inay waraaq ka maqan tahay ama waalidkiiba uu safar jiro ama waalidkii waa la waayaa ilmaha Soomaali badan waxa u badan waxa markay standard 8 ka galayaan waxa la waraaqda dhalashada loo baahan yahay inuu ku register gareeyo standard 8 ki register gareeyskaas uu ku register gareeyna qofku waxa fiican waalidkiisa inuu ku register gareeyo waxa la arkaa waalid oo asaga lahayn inuu iskaga register gareeyo saasay tahay qofkii maalinta u baahatay inaad kibaandho gasho ama aad kibaandho soo qaadato waalidkii baad waan kartaa إن دت سومالي أبغى كداونا هي حدنا إن لقيه إن تكعصب تهاي جباهر واجيف وقوي حافظ إسلام الكليرات حد وعصبنا أبري لقيه تتكس إن محد وشيء سامحنا كعاون كرتاه. أنا دت بدنا الصوماليات بيقانا إسلي حافظ إسلي أتبع لي أقانا لكن أنت أنا أقان محندي كراح فيسكي وفرنيا ويلكم أنا مش نيجوجو ولا ليالو قف كستو بلادم بانسكه بشر بانسكه waxaan rabaa qofkii aan caawin karo inaan caawiyo qofkaan caawin karina inaan meeshii laga caawin karo aan u diro inta aan shaqeynaa inta ila kulantay intaan u gafay inay caafisaan rabaa ya caafisaan dalbanaya intaan u gafay intaan wax u tarayna waxaan leeyahay ma sha Allah waayo dadkaygan wax u taray أن جواهر أنا أسكريتها هاي أو حافظ وقوي إسلي أكهول كسكو هذا هو يسوماليات بعتها ودريم كرتا قفل بو سومالي عقبتك قبسن كرت مركو نيروبي وجو لأن يرفع ربنا بأنه استك إيمان الشغل كذا نيروبي جوكتو هو كلا إن البناية هنا قاركو محابسين بالجاوا جودة كل أسكرية سومالي بعتها يحل بانك كم يكون جو أصلا مسؤولية كلا سومالي واحد مجرت مسؤولية قار أنت تسهرتين عاد سومالي ده أوجر من يسوي حقوق ونسا. مرت قبلها أسكرك هو بدنيهين أو ما إساسه شعب بحيان بدنا لكن قبلها هو بدنيهين حتى جار حاجر تمومنا الله أيضا أو حوا SP وحال هاجرة chief inspector بيكون تاي مركا قبلها أسكرت أد بيوبدني ما أهنا عبد القادر أنا عم باونا صوّد بحين ما أهنا أد بيوبدنيهن لكن وحندي لا ولا ليال وقفك إيش هرت الشرعي ولا بقى فوليه ومسمينا لبضل دينع بواي جرتا قفك بانقد كل عضيدة أو حاسب كجرو والله وشيء بالله بنيني مركا محكمة دلوجيو والله وشيء أما بون باد قاضنا يسا وبنان كات بون كجوجي دعوة هذا ويسعون يسا أما رومان باد قل يسا والعكت أتسكب حين لهدبا أو بون كات بنان كجوجلت قف معبوس وبنان كجوجا يقف معبوس وجوده كجروه قفك معبوس كبنان كجوجا وحسك بحين كرا بونكي لسي بريسون أساق قلي أودا ماتي كان أو بريسون تقولنا لبدا وحال الكواب الحكومي بقى وحال لو حكم لبدا وحي لو هلاي با لو هلا بروف لكن wax بروف لان محكمه la geeyo عبد القادر مله شاهد waa loo baahan yahay ان جواهري askari waa tahay taariikhda wax badan ba ku ognahay horta dadka qaar waxay isweydiinayaan jawaahir xageeba ku dhalatay deegaan ahaan intee ka soo jeeday qof Kenyan way tahay marka taariikhdaada wax yar nooga taaw walaal aniga waxaan ku dhashay magaalo la dhaho Madogashe waxay ku taalaa meel la dhaho North Eastern waxay kaga taalaa gobolka county-ga Garissa county bay ku taalaa waxay kaga sii taalaa Lagdera constituency kaga sii taalaa meesha Madogashe la dhahaa district weeyaan waa gobol hadda waa magaalo hadda kor u soo kacday meeshaas aan ku dhashay dhalasho ahaan meesha ku soo primary-gayga dugsigayga hoose ka soo akhristay dugsigayga sare waxaan ka qaatay school la dhaasiniya Chief Koinange la dhaho oo ku yaalo Kiambu baan ka qaatay dugsigayga sare jaamacadeedana waxaan ka qaatay Nairobi University ka hor
qof qurba joog oo dibadda ka soo shaqeeyay ma ahayd mise intaas gudaha dalka ka shaqeeyay waligay dibad waan tagay oo waxaan ku tagay ama seminar ama workshop ama hataa shakhsinimo safar aan iska shakhsi ah laakiin uma tagin kala deegaan ahaan u tag ama ka soo shaqeyso dibad uma tagin bas weydiina marka afka Soomaaliga si fiican ugu hadasho haddana qof mas'uul oo Soomaalida ka yahay xilka talow sidaan oo dhan sidee luqadda ugu barata afka Soomaaliga ها عبد القادر waxay weydiisay luqadaada maxay nadiif u tahay awalan horta qof Soomaaliyeed ahay teeda kalena Soomaali Kenyan ku Kenya ahaan ahay Kenyan baan ahay Soomaali Kenyan ah laakiin marka hore waxaan isku dari jirnaa Sooxilka iyo af Soomaaliga isku yara dari jirnaa marka walaaleen oo masiibada qabsatay soo qaxeen oo Kenya imaadeen ilaa dariska ugu dhow oo ay ku soo qaxi karaan buu ahaa imaadeen waxaan xasuustaa markaan foonfosa u bogay waxaan ka shaqeyn jirnay Dadaab xarooyinka qaxootiga baan shaqo MSF ku wala dhahan u shaqeyn jirnay shaqo yar oo iska yar anaga marka sharci xitaa maanu haysanin laakiin waxaan iska dadka oo gacmaha ku shaqeeyaan iska ahayn af Soomaaliga badi walaaleen markay imaadeen si fiican baan u baranay ma sha Allah waana ugu shukrinaya jawaahir gabagabadii gabar Soomaaliyeed baa tahay TV Soomaali Cable baa marti ku tahay maxaad ummadda Soomaaliyeed baaq oo u diri lahayd oo ugu baaqi lahayd عبد القادر waxaad i weydiisay gabagabadii maxaa baaqo u faraysa dadkaaga Soomaaliyeed waxaan u faray horta dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan wanaagsan ku sooma si fiican ku iida idin baragaan leeyahay Ramadaan wanaagsan aan leeyahay walaalayaalo amaanka waqtigan aan ku jirno waa Ramadaan dadka inay cibaadaystaan waa muhiim waxaan u farayaa baaq ciyaalka yarku dadka dhiba wixii waalidoo dhalay walaalayaal ilmihiina reebta oo quba ku dhacaysa dadka markay taraawiix ka soo baxaan ama tahajjudka ka soo baxaan dadka dhibaya anaga ma rabno inaan ilmo dadeed qabayno waxa la rabaa ilmihiina inaan reebataan Soomaaliyeed waliba dumarkan la hadlaya ciyaalkiina ka warhaya markay iskuulka ka soo baxaan tartiib oo la socda ilmaha saaxiib balano noqda ay maalimahan joogo ilmo lama qaraaco lama dilo way si cararayaan door bay galayaan laakiin waxa la rabaa ilmihi ayaka ah inaad suubiso inaad saaxiib la noqon karto cunugaaga markuu iskuulka ka soo baxo la ciyaara gurigu taga inaad ogaataa wanaagsan teeda kale waxaan baaq u farayaa in Allah intaan u gafay inay caabsan caafisan baryaya iyo bisha Ramadaan lagu jiraa bashar baan ahay nin walba ma qancin karo inta malaynaysa inaan maalinaan si ugu gafo ama si labadan ugu gafo inay caafisiin aniga baryaya iyo waxaan farayaa Ramadaan Kariim aan leeyahay id wanaagsan aan leeyahay Soomaaliyeed bisha 8 taariikh 8 waxaan galeynaa election main election madaxweyne governor senator MP illa council la electogreenaya oo waa doorasho soo socoto waana maalinta ugu muhiimsan inaad aad u soo baxdaan aan rabaa kursi aniga leedahay jiro kursigiina difaacda reebta haysta soo baxa kursigiina reebta oo kursi aad leedahay jirta difaacda kursigiina aan dhihi lahaa Soomaaliya si fiican oo codkiina u rita codkiina spoil noqdo ma fiicno codkiina spoil noqdo oo yaani markii la saxayo qof kasta inuu saxal rabaa codkiina aad ka bixiso boxka lama rabo inaad si fiican u saxdaa la rabaa qofka aad rabto waa dooran kartaa laakiin wax rasmi ah oo hadhow spoil vote noqonaynin inaad soo bisaan waay taas waa tii doorashada tan kale bisha 8 iskuulada markii la xiro walaalayaal ilmaha laga warhaayo ilmaha ka warhaya ilmihii maanta adduunka aan joogno ilmihii wax laabayaan ilmihii ka warhaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa wareysiga gaarka ah oo la yeelanay Jawaahir Maxamed Muuse oo ah askariyad ka talisa waqooyiga xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla markaasina saldhig ku leh xaafadda Jamka waana taliye Soomaaliyeed waana gabar Soomaaliyeed oo si weyn looga yaqaan xaafadda Soomaalida ee degtay Islii anigoo Cabduqaadir Jiijil ayaan wareysanay inta aanu barnaamijka lamida dib ugu kulmi doono waa Cabduqaadir Jiijil oo idin la sidaasiyo nabadgeliyo